السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الدعوة ديال سود وهذا ومركا إيه ولكن هذا كرامة هلك هذه قد عوانا سنة وبرتا يوتيوب وكل هذا كرامة هدي أي تاي مركا جوري سيدنا صوب وقد تفضل سبسكرايب ونصار أسلم مركا الريح كمال الكعس سي أي كوسو قاران مقالدة كلا دوان يدعوين كحيسها له يعني هلكن كوسو قدوينه هدي هورين ولا شوكتي ماذا حد نوصار انتاي فضلا مقالك الله يكوسي قبو أركتي ذا وينو مهم نلو ذاكتو qof kastoo dunidan ku nool waqtiga loo waasteeyaa ayuu geeriyoonayaa, laakiinse qof kasta waxa uu filanayaa in maalin uunuu dhimanayo, inkastoo uusan jirin qof garanaya saacadda loo oofsan doono. Allah u naxariistay gabadhan dhalinyarada ee sawirkeeda uu ku muuqanayo waa ay geeriyootay. Intaysan geeriyoon ka hor waxa ay dareemaysay farxad badan iyo sidoo kale jawi qurux badan. saacad ka hor gabadhan intaysan dhiman waxaa barteeda WhatsApp-ka ay ku soo qortay qoraalkan sidaan u qornaa: wallaahi maanta farxadeeda lama qiyaasi karo, hooyo macaan, alla nabad ha isugu keeno. xaqiiqdii qoraalkaas waxa uu taabtay dad badan, laakiinse Allah u naxariisto Hodan Cawil xalay ayay shil gaari ku geeriyootay. waxa ay ka mid ahayd dhalinyarada degmada Gaashaamo, waxaana safar ay u ahayd isla Gaashaamo kadib markii loo fasaxay waxbarashadii. waxay ku jirtay jawi qurux badan, waxay islahayd safarkaaga si nabada ayuu ku soo ilaa doonaa, laakiinse tii Rabbi ayaa u qorneyd oo ajasheeda ayaa timid gabadhan dhalinyarada ahayd. dad badan waxaa damqiyay fariinta barteeda WhatsApp-ka ay ku soo qortay gabadhan, khaasatan barteeda statuska ee WhatsApp-keeda. waxay ahayd fariin dad badan damqisay. waxay ka hadlaysay gabadhan intaysan geeriyoon ka hor qofka qalbigeeda ku weynaa, waxaana qofkaas uu ahaa hooyadeeda. waxay gabadhan cabiraysay qiimaha hooyo ay ku leedahay agteeda. Allah u naxariiso oo jannada firdowsa ka waraabi gabadhan dhalinyarada ahayd ee ku geeriyootay shilka gaari ee ka dhacay Gaashaamo. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad na soo booqato fadlan subscribe nagu sharaf isla markaana riix gambaralka cas. haddii aad horey noola joogtana aad mahadsan tahay. sidoo kalena aragtidaada waad ku dhiiban kartaa qaybta commentiga. muuqaalkana waxaan kaa codsanayaa inaad like sii saarto markaasi oo walaalkan aadan karaamada kaga tegaya tan iyo muuqaalkan kan xiga intaan ku kulmayno. nabadgelyo.